kusoo dhawow bahda saxaafadda deegaanka shirka maanta aad ka wada hadlayseen ujeedadiisa muxuu ahaa xilligan maxaa loogu baahday shirarka noocan oo kale maxaa laga wada hadlayay bal fikirkaaga ama magacaaga bilaabay bismillaahi raxmaan raxiim magacayga wad garanaysaa doolaal baan ahay Itoobiya waa dal muddo dheer soo kabkabanayay oo la isku soo ururinayay oo taariikh hore oo dheer leh marna Abasiiniya ay ahayd Maragsoon bay ahayd mar dambana haddana Itoobiya noqotay dalka dhan la isu soo ururiyay waa dad wax qabsanayay iyo qaar la qabsanayay aakhirataankiina Itoobiya la isugu wada magac daray cid ka raali ah cid aan ka raali ahaynba marka dawladdan hadda Abiy Ahmed uu hogaaminayo isagoo arka fikirka kala duwan ee qowmiyadaha faraha badan ee Itoobiya wuxuu soo go'aamiyay fikir oranaya sida Itoobiya u wada noolaan lahayd wixii maanta ka dambeeya aynu ka wada hadalno sida daraadeed waxa la soo rogay proclamation ama faafin rasmiya oo magaceeda la yiraahdo faafinta wada xaajoodka rasmiga ah ee qowmiyadaha Itoobiya kelmadda national dialogue waa wada xaajood weeyaan marka kaas weeyaan waxa meesha aynu inaguna maanta isugu nimid horeyna waa la isugu yimid haddana waa la isugu yimid waana la isugu iman doonaa ujeedada laga leeyahay waxa weeye qowmiyadaha faraha badan ee 80ka dhaafe ee Itoobiya ee qolo waliba ay dan leedahay wixii maanta ka dambeeya sidii ay u wada noolaan lahaayeen ay dal u wada ahaan lahaayeen ama ay u wada joogi lahaayeen ama ay ku kala tagi lahaayeen sidii ay u wada dhaqmi lahaayeen wixii ay isku ogaan lahaayeen wixii ay ku heshiisahan lahaayeen wixii ay ku kala fikir duwanaan lahaayeen ayaa doodahan lagaga hadlaya qolo walba oo qowmiyadaha Itoobiya kamid ah ama ha yaraato ama ha badnaato ama ha xoog weynaato ama ha laga tabar badnaade qolo walibana waxay soo diyaarsanaysaa mashruuca ay wada hadalka ku galayso inaguna maanta Soomaali ahayn kaynu ka doodayna waa kaas waa kii aynu Itoobiya markay isu timaado aynu kaga qayb gali lahayn proclamation-ka ama faafinta rasmiga ee dawladdu soo saartay waxa ku qoran inay jiraan xubno 11 ah oo guddida sare ee qabanqaabinta wada xaajoodka rasmiga ah ee Itoobiya guddidaana nin Soomaaliya ku jira oo ambassador Maxamuud Dirire ayaa ku jira runtii isaga laftiisa iyo qoladeenan maanta wada xaajoodka halkan kaga hadlaysa waynu iska warqabnaa waynu sognahay ujeedada waxa weeyaan meesha lagu yimidba inaynu halkan dhowr wax ku cadayno waynaan ku cadayno taariikhdeenii inaga Soomaali ahaan ma dadka Itoobiya ka mid noqdo baynu noqday ma kuwii lagu soo daray baynu noqon ahayn ma kuwii la gumaysan jiray baynu ahayn maxaynu isu naqaanaa taariikhdeenii inaynu cadaysano weeye halgankeenii taariikhdaynu soo maray waa inaynu cadaysano inuu sheegano dhibihii laynoo geystay gumaysigu inoo geystay waa inaynu cadaysano wixii xaq ah ee Itoobiya inaga maqan national dialogue waa inaynu ku cadaysano wixii aynu doonayno in cawil celin ama magna lagu siiyo in lagu gafay waa inaan ku cadaysano kadibna waa inaynu markaynu inta ka soo gudubno cadayno wada jirka Itoobiya hadii aanu maanta wixii ka dambeeya ahaanayno shuruudaha aan ku kaga sii mid ahaanayna Itoobiya ama kaga mid noqonayno way anagu waligayba kamaanaan mid noqon waana lagu dareeyay hadii aan markaa doonayno inaan Itoobiya la sii wada joogno shuruudaha aan kaga mid noqonayno ayaan doonaynaa inaynu meesha ku cadaysano constitution-ka waxaynu ku qabnayno ayaynu cadaysanaynaa khayraadka wada qaybsigiisa ayaynu ku cadaynaynaa nidaamka dawliga ama systemka dawladdihi inuu yahay mid wada jir ah oo qoomi federaal ama confederaal wax labada ka yar oo inaga in anfaca ma jiro waxaad maqlaysaa federaal juqraafiya oo heer deegaana waxaad maqlaysaa mid kelinimo ah oo midnimo ah oo unitary waxa inaga inama anfacdo shaqana kuma lihi inagu waxaynu ku leenahay kaliya mid qowmiya oo federaal ama confederaal marka waxa aan maanta ka hadlayno aan doonayno inaynu diyaarsano wixii aynu shirweynaha la tagi lahayd ee maanta lagaga hadlayo
kulankan wada jirka ee aqoonyaha isugu yimaadeen waa sidaas صح markaan u nimaadno deegaanka Soomaalida shacabku ma ka warqabaa ma ku abaabulan yahay wacyiga bulshada xaguu taagan yahay maxaa la filayaa markaa xilli maalinsan la leeyahay uu qabsamaya horta mashruucan 6 bilood kadib uu bilaabmaya muddo 3 sano inuu socdana waa suurtagal qolo walbana wax bay shirka la iman doontaa inaga shacab weynaheena de waxba meynaan sheegin shirar waaweyna umaynaan qaban laakiin waxaan ku baraarujinay daladaha aqoonyahanku way la socdaan aqoonyahanku la socdaa oday dhaqameedka deegaankeena uu la socdaa ururada haweenka iyo dhalinyaradu way la socdaan aqoonyahanada jaamacaduhu doodan way la wada socdaan wayna ka wada qayb galeen qolo walbana fikirkooda iyo wax ku diridooda contributionka way ku darsatay way ku leedahay laakiin wali abaabul guud oo ama heer xisbi ah ama heer dawladeed ah oo aynu shacab weynaheena arintan ku baraarujinayno oo aynu de ku wargelinay wali ma jiro taana waxaan filayaa warfaafintiina faraha badan ee meesha tegan inaad kaalinta ka qaadataan oo idinku mas'uuliyadda idinka leh dadka inaad fariinta gaarsiisaan marka arrimaha heer qaran laga hadlayo dawladda iyo mucaaradka iyo muxaafidka iyo dadka kala duwan maxaa la gudban arrintan oo kale maadaama dan guud tahay arrintani mucaarad iyo muxaafid toona ma laha arrintani waa Soomaalida deegaankaynu ka hadlaynaa dadka 10 milyan ku dhawaynu ka hadlaynaa calina ma lahan maxamedna ma laha dawladda iyo shacabka iyo axsaabta iyo aqoonyahanka iyo odayaasha iyo dhalinyarada iyo dumarka iyo hooyooyinka dhammaanteen waa inaynu hal wada ujeedo yeelano oo maanta laga bilaabo dadkeena deegaanka Soomaalida maxaa u dana maxaan qabsan karaa maxaynu Itoobiya kaga mid noqon karaa maxaynaan kaga mid noqonin wax adna waa inay yihiin wixii aynu sameeyno Itoobiya waa inay ogaataa maanta wixii ka dambeeya waxaynu ogol lahay ee Itoobiyanimada iyo waxayna yeelayn ee aan diidanahay ee Itoobiyanimada aan ku gali karin waa adaa waa inay noqotaa waxaan rabaa inaan weydiiyo hal su'aal doodaha hadda waxa ka mid ah in presidential power loo gudbo oo awoodda dowladda leeyahay in dalka marka wada xajoodku dhaco Itoobiyaanka ama wataqaana qowmiyadaha qaar waxay diidayaan dood ah in awoodda ra'iisul wasaaraha laga saaro oo awoodda madaxweynaha oo federal system loo gudbo haasi maxay ka dhigantaa horta adduunku de systemka dawladaha qaarna waa madaxtooye qaarna waa parliamentarian macnaheedu waxa weeyaan midna shacabka soo doortay madaxweynaha oo awoodda madaxweynaha awoodda shacabka leh awoodda shacabka toos u leh marna waxa weeye dadku baarlamaanka bay soo doortaan baarlamaankaasana marka awooddi shacabka la wareega isagaana hogaaminta maamulka iyo dawladda sameeya sida daraadeed haddaan doonayno inaynu awood cod yeelano oo leeno baahdo haddaan doonayno inaynu madaxtooyada meesha ugu sareyso toos ula xisaabtano inaga waxa inoo fiican systemka qaab dhismeedka madaxtooyada ama madaxweynaha ayaa inooga fiican ka baarlamaanka hadda wax la bedelayna ma ogaano ninka hadda baarlamaanka cod ka doonayana de inaga inoo iman maayo laakiin maanta hadduu madaxweyne yahay de madaxweynuhu deegaanka Soomaalida 10 milyan oo cod baa yaal marka qasab ay ku tahay inuu dadka ka warhayo shacabka ka warhayo midna waxa weeye